walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan maanta waxaanu ka sheekeysanaynaa waxyaalaha aaladda ay oo ugu fudud oo gaalaba ay noo keentay oo gaalana bartay oo gaala noo furtay oo gaalo noo fududeysay inaan adduunka meel walba aan dadkeena iyo ehelkeena iyo walaalaheen meel walba ay joogaan inaan kula xiriirno laakiin haddaan Soomaali nahay waxaan u qaadnay dhinac kale oo abuse oo maaragtay aan bahdilnay oo dadkii gaalada iyo adduunweynaha inala yaaban yihiin oo maanta u isticmaalayno siyaabo kale oo aad ula yaabaysid oo aad uga naxaysid misawra aad la yaabaysid aad soo gelinaysa oo leeyahay caloosho intaa la eg tahay oo dhar qurux badan oo meelaha in la soo kireysta aad u malaysid oo maaragtay I don't think in maaragtay dadkaas ay gadan karaan laakiin waxaan u maleynayaa dadka Facebooka dharkaas oo isticmaala inayna gadan karin laakiin dharkaas waa dhar Hollywood oo maaragtay aad qaali oo ah nimankan la yiraahdo Versace Gucci Giorgio Armani iyo dadkaas waa dad tagay oo maaragtay walow maanta aan maaragtay dan maaragtay muslimiin nahay annagu aan customer nahay oo maaragtay ay naga gadaan oo aad u gadano haddana dharkaas nimanka makhaayadaha taga jimca wanaagsan subax wanaagsan dhahaya especially gabdhaha oo u isticmaala si qaldan Facebooka oo dhahaya halkan bay ka shidan tahay Snapchat-ka ka shidan tahay halkan ay ka shidan tahay calaamadahaas waa calaamadihii oo Abu Jahl oo Ilaahay ku anaantay tabad yada Abi Lahab tabad kelmadaas halkan ay ka shidan tahay waxa aad leedahay waa naar baad u yeeranaysaa naar baad Ilaahay ka baryaysaa naar baad tolka iyo ehelka iyo walaalaha iyo dadkii aad ugu yeeraysa halkan ay ka shidan tahay Snapchat-ka ka shidan tahay halkan ay ka shidan tahay Soomaaliya waxa ay weydiiyay gaalana idin ma rabto idinkuna isma rabtaan diintana ma rabtaan waxa laga laayahay walaalkay muslimka ahayo especially walaalkayga Soomaaliga ahayo oo boqolkiiba muslimka ahayo waxa Ilaahay ka laayahay muslim fiican oo aqeeda toosan oo dabeecad fiican oo akhlaaq wanaagsan noqo waxaan u soo noqonaynaa nimanka la yiraahdo Facebook waxaad u isticmaali kartaa si alla saar rabtid oo xagga wanaagana waad u isticmaali kartaa quraan baad ka dhageysan kartaa quraan baad ka baran kartaa dadka ehelkaabaad si fiican ugu salaami kartaa dadka walaalahaabaad si fiican ugu salaami kartaa laakiin Soomaali haddaan waa abuse gareynay oo si kala u isticmaalnayo inta makhaayad tagno oo hilib iyo bariis iyo chicken iyo unta aanan gadan karin oo u jeedno inay maaragtay qaali tahay been intaad soo dhigatid aad dadka masaakiinta ah oo dhibaataysan oo gaajeysan oo dhagax caloosha ugu xiran yahay oo biyo la'aan hayso oo gaajo hayso oo koronto haysan oo waxba haysan aad ugu faanaysaa faankaasna meelaad ka keentay ma naqaan iyo meel oo abi isir Soomaali ka leeyahay walaalayaal Facebooka waxaad u isticmaashaa dhinaca wanaagsan oo dadka masaakiinta ah ha u faanin jimca wanaagsan adoo jaakad Gucci inta soo gashito caloosho inta ku leegtahay atusin inaad dheregsan tahay inaad kibirsan tahay inaad ka dhar qurux badan tahay inaad ka niyad fiican tahay inaad ka nolol fiican tahay dadka walaalaha ha tusin ee dadka walaalaha ah dhinaca wanaagsan tus adoo xishoonaya adoo asluub badan adoon calool weyneyn adoo maskax xun oo ku fikireen adoo halkan ay ka shidan tahay iyo halkan ay ka baxsan tahay halkan ka dhahaynin si wanaagsan dadka walaalaha ka farx dadka walaalaha ka farxi wax u dir sidaad wax ugu diri lahayd sidaad u gacan qaban lahayd sidaad u kaalmeyn lahayd sida aad qalbiga iyo maskaxda iyo meel walba aad uga daawan lahayd ku fikir ha ku fikirin sida walaalka aad u dhiman lahayd oo u tus lahayd inaad ka sareyso inaad ka lacag badan tahay inaad ka dhar qurux badan tahay inaad maaragtay kan jir fiican tahay walow maanta haddaad kalarkan cadeyn karto waad cadeyn lahayd walow hadda gabdhaha badankood ba ay cadeeyeen ba iska siibeenba haddana haddaad cadeyn karto kalarkan waa cadeyn lahayd laakiin ma ku suurtoobi karto kalar Ilaahay kugu dhaliyo way herkaas inaga maraysa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed YouTube-ka isticmaasha iyo Facebook-ka isticmaasha oo isku sheegaya in dadka ka raganimo badan yihiin ka dhaqaale fiican yihiin ka dhar qurux badan yihiin ka maaragtay nuur maaragtay kareem iyo dayana wax soo marsan ma aqaan kaamirada ugu cadeysay dadku u tuso waxa soo dhan waxba kama jiraan qalbigaaga
ragdi iyo xaasidnimo iyo qabiil ayaa ka buuxa wax aad tahay male nin liitaa tahay ninka walaalkiisa ugu faanaya calool weyn dhabar weyn iyo maaragtay dhar qurux badan oo waa asagoo lahayn marka waxaan ku leeyahay dadka walaalaha u tur oo dadka walaalaha kama lacag badnide qaxooti baa tahay haddaad Soomaali joogtana qaxooti un baa tahay haddaad dibadaha joogtana qaxooti un baa tahay haddaad Soomaali joogto tii halkan un baa lagu soo diraa 3 kun markay ka dhamaatana waa hadda maaragtay waxaad samayso ilaahayna waa og anaguna waa ognahay laakiin halkan ka sheegi karmayne waxaan ku leenahay walaalkay Soomaaligow gabadha Soomaaliyeed oo isku soo dhajinaysa dharka korna ka xijaaban intaana aan ka asturnayno oo beenbeenta maaragtay waa fashinka maaragtay xijaabka fashinka ee gaaladuna tustay oo dharka ku dhagan oo jirkeedo dhan loo jeedo laakiin intaan beenbeenta ka xijaaban laakiin aan gadaashan aan waxba ka jirin oo wax walba loo jeedo oo beenta oo quraafaadka marka waxaan leenahay war ilaahay ka baqda war ilaahay xasuusta fafirru ila allah war ilaahay wuxuu kula rabaa muslim fiican inaad noqotid muslim akhlaaq badan muslim ixtiraam badan ilaahay xaqiisa siiya bila aadankana xaqa siiya xadiis aad u qurux badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nooga tagay oo muslimiinta looga dhaartay afsaxu baynakum bisalaam taxababa ilaykum very beautiful ma sha allah allahu akbar wuxuu ilaahay leeyahay rasuulkiisana leeyahay war salaama waa isjeclaanaysaan laakiin waxa leedahay maxaanu salaamaa ninka habar gidir weeye maxaanu salaamaa ninka majartan weeye maxaanu salaamaa ninka dhulbaanta weeye maxaanu salaamaa ninka hawiye weeye maxaanu salaamaa ninka ma isaaq weeye maxaanu salaamaa ninka hiruru weeye war waxaasoo dhantaa ka tagtid war salaanta badiya nimaad taqaano iyo nimaad aqooninba salaan afsaxu baynakum bisalaam taxababa ilaykum walaalahayga Soomaaliyeed oo Facebooka iyo YouTube-ka sida qaldan oo abuse ku ayow waxaan leenahay ilaahay waa ku arkaa ilaahay waa ku maqlaa asaga ku abuurtay ogow markii hooyada uurka aad ku jirtay hooyada aana ma lahayn mar alla markaad banaanka u soo baxday ba ilaahay kuugu talagalay inuu aana ku siiyo barkee hilib ma cuni kartid bariisna ma cuni kartid rootina ma cuni kartid ogow rabbigaas ha iloobin rabbigaas wuxuu kula rabaa akhlaaq wanaagsan oo caqiido wanaagsan oo sharaf leh oo islaamnimada aad sheeganayso uurka inay ka jirto ma aha intaan kaliya muslim baan ahay laakiin ma tukanayo muslim baan ahay laakiin dariiqa sax ah ma raacayo muslim baan ahay laakiin qiyaamada ma deynayo muslim baan ahay beenta ma deynayo muslim baan ahay boobka ma deynayo muslim baan ahay beena ma deynayo waxaasoo dhan ilaahay kulama rabo waxaasoo dhan inaad iska daysaa laga rabaa haddaad tukato waa inaad si fiican u tukataa oo ilaahay habbi ka dhigtaa makhluuq ha ku mashquuline ilaahay ku mashluuq Facebooka ilaahay waa ku maqlaa waa ku dhageysanaya wuuna ku arkaa marka isaga ku abuurtay adoon miskiina tahay daciif ah 3 mugdi baa laga soo bixiyay 2 biyo laga abuuray 2 miino biyo laga abuuray ogow Facebooka dadka ugu faanin dadka ku abuse gareyn dadka wax kala isaga dhigin waxaad aduu samaysato been ah daraadan lahayn soo kireysatid calool aadan lahayn inta soo kireysatid raashin aadan lahayn inta soo kireysatid dadka masaakiinta walaalow waa ku baryeynaaye dadka masaakiinta bahdin dadka waxba ma dhaantid dadka waxba ma dhaantin been baad dhaantaa waxaan aad iyo aad uga xumahay inaad dadkaas walaalihiin oo Soomaaliyeed oo baahan oo biyo la'aanta oo guri la'aanta oo kaartoonada ku seexda oo ma aragtay dhibaato ciyaalka yarka meelaha iska taagtaagan inaad u faanto adoo wax walba soo kireystay oo wax run ay ka jirin dharka waa soo kireysatay caloosha waa soo kireysatay maskaxda waa soo kireysatay raashinka waa soo kireysatay marka waxa leeyahay dadka walaalaha u tur oo dadka walaalaha ha bahdilin ha niyad jabinin waa dad Soomaaliyeed waa wadaniyiin waa dadkaagii waa walaalahaagii walaalow waa ku baryayay haddaadan waxba u tari karin ha ku abuse garin Facebooka ha ku abuse garinin YouTube-ka oo cunto been ah iyo dhar been ah iyo maskax been ah iyo hadal been ah iyo kibir iyo faan aan jirin meel ka jirin adoo shab qaata meel walba joogtid beenta waxaad qaadatid male lacagna ma lihid waxa kale oo aad uga xumahay wiil yar oo walaalkeena oo Kenya jooga oo xoogaa yar iska xanuunsan oo la yiraahdo daadi niman ayaa Facebooka iyo YouTube-ka soo gelinayo shacatire leeyihiin herkaasi marusa warma walaalka
oo $2 idaada ku yiri kelmad fiican isticmaalay kelmad ixtiraam badan kelmad sharaf leh oo qaali ah isticmaalay ayaad ku faadeed bahdilaysaa ayaad YouTube ka soo gelinaysaa ayaad Facebook ka soo gelinaysaa oo bahdilaysaa war waa walaalka war waa arxanka war waa walaalkaayo wax ku weydiiyay war walaalow war ha aynin war ha ablagaadeynin ha bahdilin ha isha atre hebel ay iyo waxa hadhihin war walaalow joog war waxba ma dhaantid meeshuu joogo ilaahay waa ku joojin karaa 1 second la soco رب العالمين رب العزيز القوي واكو والله بين كل شيء ماي فيسبوك ما انت سو دغتid يوتيوب ka soo dhigtid oo ku jeejeysid nin muslim ah ina Facebook dadka soo dhigtid oo ku faanfaantid oo maarto isha atre ninka arag iyo ila arag iyo meesha ninka ka shidan tahay iyo waxaan la hadlayaa oo u digayaa walaalkay Cabdiraxmaan Dabcasir oo ahaay joogo oo dadka Soomaalida caaya especially wadaadada qabiilka qof u aaba yeelay ma jiro Cabdiraxmaan waxaan ku arkay asir walaalkay waxaan ku arkay adoo qamiis wata oo koofiyad wata oo nuurka iyo edabta ka muuqata aad la yaabisid laakiin YouTube baad soo gelisaa iyo Facebook baad dadka ku baabi'isaa war heedda waxaan ku leeyahay asir Cabdiraxmaan Dabcasir waxaan ku leeyahay war qamiiska iyo koofiyada iyo iimaanka aad sheeganayso hoogaa meena ku barin mayna wax ku sheegin muna iimaanku kula hadlin dadkaad caynayso dad walaalaha way dadkaad aflagaadinayso qabiilkaad caynayso waa dad walaalaha waa dad ad meel wada gali doontaan hadii la yiraahdo la yiraahdo janno oo ciyaar aan ahayn oo loo diyaariyay dadka qaali ah waxaan ka waaninayaa Facebook-ga iyo YouTube-ka dadkaad ku abuse garayso oo ku ayso oo qabiilada ku baabiiso oo aad u caminayso war dad baa ka dhashay waxa laga yaabaa inaad wada dhalateen waxa laga yaabaa inay kaasankaaga yihiin waxa laga yaabaa inay abtiyaasha yihiin war waa Soomaali way is wada dhashay way isku wada noqotay ha aynin dadka waxaan aad uga xumahay Cabdiraxmaan Dabcasir waxaan ku ogahay on YouTube aad kaaga fiirsaday adoo wadaadada ku haysta masaajidadaas aniga ba Toronto masaajid waa ka raadiyay waa ka waayay mana qofna ma aynin qofna ma aflagaadeynin laakiin hadii ay ku noqon weyday inaad wadaadadu ay ku ogolaan in masaajid furato meesha aad moolka aad ka furanaysay ku diideen haddana mool kala furanaysaa waa dhibaatado dhan waa kula socdaa laakiin Cabdiraxmaan diinta runta ka sheeg iimaanka runta ka sheeg walaalkayow akhlaaq aqeeda toosan iyo akhlaaq wanaagsan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam khamiiska aad wadatay nabi maxamed baa wadatay koofiyada aad wadatay nabi maxamed iyo asxaabadii qaaliga ahaa baa watay marka dadka aflagaadiso marka dadka ayso marka dadka dhibaatayso ma laga yaabaa xogaa inaad ka qeyrooto inaad ka xumaato waa la isweydiinaya aydaas oo dadkaas inay aakhiro ku afiyaan way walaalow oo misna walaalow YouTube-ka iyo Facebook abuse-ka ka daa wax kale u isticmaal diinta ku baro quraanka ku xafid dadka wacdi fiican ugu sheeg oo qeyrka u sheeg ummadda Soomaaliyeed way kala jabtay way kala baabaaday 25 sano jiranayd oo qabiil la jiranayd qabiilkan ka daaweynayna hadda isku daynaa inaan isku soo celino oo ku raadinayna Soomaalinimo meel walba jirta marka waxaan aad uga xumahay ninka la yiraahdo Khan walaalkay Khan oo Yurub jooga aad baan u jeclahay waa nin fiican waa nin sharaf leh waa nin isbadan laakiin wax yar ha iska daayo ayda gabdhaha aad caynaysid ayda laftaada aad caynaysid ila marka adigu aad gabar ayso walaashaana waad ayso hooyadaana waad aysay ehelkaana waad aysay gabadh waa kula dhalatay waa ku dhashay waa ku dhaxday nin walaalka ah aynin walaasha ah aynin yoona shaydaan ku soo isticmaalin qaqaano oo ummadda Soomaaliyeed lagu soo isticmaalin waliba especially gabdhaha walaalahay oo qaaliga ah qabad Faaduma waxa ka dhalatay Faaduma bint Rasuulullah Hamza Abu Bakar baa ka dhashay gabdhaha caynaysid ha aynin soo dhaweey jeclow ku faan laakiin ha aynin waxba ha u dhimin ha aflagaadeyn ilaahay yoona afka ku goyn afkana ku qaban indhahana ku beerin oo meel walba iska tuurine gabdhaha ummadaha muuminiinta faraha ka qaad dadka walaalaha allo yaa lagu darin especially qabiilkan aad caynayso jooji Soomaaliya midnimo raadinaysa Soomaalnimo walaalnimo raadinaysa Soomaalnimo ehelkeed bay isla raadinaysaa way kala jiran tahay 25 sano sariir saarneed way jiran tahay Soomaali brother qoqaaniyo way jiran tahay Soomaaliya 25 sano ayay sariir u saarneed qabiil
oy jiran tahay daawadii aan u raadinayna daawadii waa la'nahay kuwii maaragtay daawada noo hayo oo wadaad Soomaali isku sheegayna asagu wuxuu rabaa inuu nin walba wax ka celiyo tusbax inuu dadka ka celiyo laakiin asaga labada dhinac ka daaqo labada dhinac inuu ka daaqo laakiin tusbax waa bidco halkan waa bidco surwaalka dheer waa bidco kan waa bidco laakiin asaga labada dhinac buu ka daaqaya taas halkaana wax waa ka maqlaan halkaana wax waa ka arkaan dhinac kale farjigana wax bay la aadaan war Soomaaliyay isku duubma oo isticlaada oo walaalooba oo midnimo iyo wadaninimo iyo diinta islaamka aanu soo noqono hadda ma haysana diinta islaamka wax inaan haysano gaal waxay noo haystaan inaan haysano laakiin ma haysano waxa aad ugu qiimo badan islaamka walaaltinimada laakiin walaaltinimadii baa kala dilay hebel qabiil balaayo group company loo sameeyay company lahayo wahabi company lahayo taxad company lahayo islaax company lahayo relief waxaasoo dhan looma baahna ummadda Soomaaliyeed waa hal haddii aan walaalayaal walaal aan nahay oon isku jecelnahay oon israadsanayno oo diinta islaamka run naga tahay ilmahan masaakiinta ah oo maalin walba mid la dilayo oo maalin walba mid ooynayno waxaan u samayn karnaa iskuul ilaa jaamacad ay Soomaali leedahay waxaad leeyahay war diinta aan soo noqono war gacanta aan isqabsano war aan walaalowno war aan ku dhilmano kalmada tawxiid laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah Soomaaliya tooso